Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Aqrinta ama wax akhriska waxa uu door muhiim ah ka qaataa horumarinta nolosha. Sidoo kale akhrisku waxa uu ka qayb qaataa baabi'inta ama ka takhalusidda jahliga. Daawadayaal, maanta waxaan isku dayi doonaa in aan dul istaagno faa'iidooyinka uu leeyahay wax akhriska. Ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Marka aad eegto xaaladda ay marayaan dadka muslimka ah dhanka cilmiga iyo markii hore sida ay ahaayeen, ama loo barbar dhigo qolooyinka reer galbeedka ah, waxa aad garowsanaysaa in uu jiro farqi xoogan. Diinteena suuban ee Islaamka waxa ay aad u dhiirigelisay wax akhriska, waxaana caddeyn u ah aayado Qur'aan, axaadiis iyo ku camalfalkii dadkii hore iyo kuwii dambe ee wanaagsanaa raadadka ay ka tageen. Ereygii ugu horeeyay ee la soo dejiyo oo waxyi ah wuxuu ahaa aqri, iqra, taas oo si cad noo tusinaysa in uu Islaamku yahay diin dhiirigelinaysa wax akhriska. Waxyaabaha kugu saacidi kara in aad noqotid qof wax akhriya waxaa ka mid ah in aad dareensan tahay muhiimadda ay leedahay akhrintu. Dadku waxa ay cadow ku yihiin waxa ay jaahil ka yihiin. Akhrisku waxa uu kobciyaa afkaarta akhriyaha, dhaqankiisa, noloshiisa, la noolaanshaha bulshada. Wuxuu kaloo ka dheefaa khibradda qoraaga kitaabka. Xulo kutubta kugu habboon. Booqo maktabadaha, meelaha lagu iibiyo, meelaha lagu soo bandhigo buugaagta iyo kutubada. Weydii dadka aqoonta u leh buugga iyo qoraaga ka haqabtiraya baahida aad u akhrinaysid buugga, isla markaana luqadda uu ku qoran yahay aad fahmi karto. Waa in aad iska ogaataa qoraaga fikirka uu xambaarsan yahay. Haddii aad tahay qof haysta cilmi ku filan, kala ogaanshaha afkaarta qaldan iyo midda saxda ah. Haddii kale, kala tasho cidda aqoonta u leh. Waxaa jira tusaalayaal fara badan oo aynu u soo qaadan karno ahmiyadda uu leeyahay akhrisku. Laga soo bilaabo markii aadamuhu bartay akhriska waxna la qoray, ilaa maanta oo laga joogo casrigii tiknoolajiyadda. Waxaa ummadda hagi jiray dadka aqoonta leh ee wax akhriya. Akhrisku waxa uu qofka aadamaha ah siiyaa isku dheelitirnaan xagga aqoonta ah. Waxaanu qofka hantiyaa garaad iyo garasho badan oo uu kaga duwan yahay dadka aan waxba akhrinin. Akhrisku waxa uu faa'iido u leeyahay caafimaadka, sida ay caddeeyeen diraasado badan oo la sameeyey. Akhrisku waxa uu la dagaalamaa warwarka iyo walbahaarka. Akhrisku waxa uu ilaaliyaa waqti ku lumi lahaa waxba la'aan. Akhrisku waxa uu qofka ka caawiyaa sidii diinta wax uga baran lahaa, una gudan lahaa waajibaadkiisa cibaado si sax ah. Akhrisku waxa uu qofka baraa sabirka, iimaanka iyo dadnimada dhabta ah. Aynu wax ka soo qaadano culimada Islaamka iyo kuwa reer galbeedkuba waxa ay ka yiraahdeen akhriska. Imaamkii weynaa ee Imaamu Shaatibi ayaa waxaa afkiisa laga hayaa inuu yiri oraahdan: cilmigu waxa uu ku jiray laabta ragga, dabcan culimada iyo aqoon-yahanada. Kadib waxa uu u gudbay kutubta, furihiisuna waa gacmaha ragga wax akhriya. Ma garanayo saacada nolosheeda igaga farxad badnaa waqtigan ku qaatay kutubteyda dhexdooda. Waxaa isna yiri James Shirley. Imaamkii weynaa ee Imaamul Bukhari ayaa waxaa la weydiiyey: waa maxay dawada xifdiga? Waxa uu ku jawaabay: waa indhaha oo lagu badiyo akhriska. Adduunka ma jiro waddan horumaraya ilaa uu ku bixiyo kutubta lacag ka badan tuu ku bixiyo xanjada. Waxaa oraahdan laga hayaa Albert Habat. Waxaa la i weydiiyey yaa hogaaminaya adduunka. Waxaan ugu jawaabay cidda garanaysa sida wax loo akhriyo. Waxaa yidhi Voltaire. Anna waxa aan ku darayaa in aanay jirin wax ka qiimo badan wax akhriska. Fadlan, haddii aad kanaalka ku cusub tahay, ha ilaawin in aad subscribe ku sameyso. Sidoo kale la wadaag walaalaha aad la jeceshahay in ay iyagana ka faa'iidaystaan. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum.